dhacay macquulna aysan ahayn inuu badbaado ayaa ku soo ها adiga muuqaalka daawanaya hadda waxaad gacanta u haysataa siida oo riix buttonkan cad sidoo kale soo ka saar meeshaan yar haddii aad horey noola joogtana aad iyo aad ayaad u mahadsantahay intaas ayaad noo istaajisay muuqaalka sii daawo sheekadani waxay ku bilaabanaysaa 20 sano ka hor qabiil yar oo ugaarsata ah oo ku noolaa dhulka dhagaxa iyo barafka ee Yurub waxay ku noolaayeen ugaarta ay soo diloodaan si ay uga baxaan maalmaha adag ee jiilaalka waxaan aragnay hogaamiyaha qabiilka Tao isagoo dhalinyarada qabiilka jaaminaya xirfadooda waran-samaynta waxaa tijaabada ka gudbiyay Kayra iyo saaxiibkiis Kaba sidaa darteed waxaa loo qaadanayaa safarkii ugu horreeyay ee ugaarsiga ka hor xagaaga iyadoo qaybka caado muujinaysa inay hadda qaangaareen waxa uu Tao amraya in la garaaco si ay u bartaan xanuunka habeenkii isagoo iska dhigay mid hurda Kayra wuxuu maqlayaa Tao iyo hooyadiis Raaho oo wada sheekaysanaya Raaho ma aaminsan inuu diyaar u yahay ugaarsiga sababtoo ah wuxuu ku shaqeeyaa qalbigiisa imaha warankiisa laakiin Tao wuxuu aaminsan yahay in Kayra uu waajibkiisa gudan doono oo uu caddayn doono inuu yahay wiilka hogaamiyaha maalin una uu qaban doono xilka qabiilka isagoo u qalma taasi oo ah hadda inuu barto sida loo ugaarsado subaxii xigay kooxda ugaarsiga ayaa baxaya kadib markii macsalaamayeen ehladoodii kooxda waxay bilaabayaan safarkooda iyagoo raacaya calaamado hore oo ay ka tageen awoowayaashood kuwaasoo laga sameeyey farshaxano dhagaxyo ah oo tilmaamaya jidka ay raacayaan iyo kan lagu soo noqon doono sawir gamceedku wuxuu tilmaamayaa jihada ay u soconayaan taasi oo ah goobta ugaarsiga intii ay safarka ku jireen waxay la kulmayeen koox kale oo ugaarsato ah uu hogaaminaya nin la yidhaahdo Ramo waa saaxiib hore ee Tao islaamaya wuxuuna barayaa Tao wiilkiisa kaasoo ah markii ugu horreysay ugaarsiga kooxda ayaa israacaya waxayna bilaabayaan safar dheer habeenkii Kayra wuxuu arkaya aabihii oo dabshidaya wuxuuna isku dayayaa inuu horiyo laakiin uu awoodi waayay wuxuuna dareemayaa daciifnimo taasoo ah inuusan qalmin inuu noqdo aabihii wiilkiisa laakiin aabihii ayaa dheerinaya wuxuuna u sheegayaa inuu baran doono isagoo markuu da'diisa kala jirayna sidaan kale ahaa markasta uu Kayra fursad helo Kayra wuxuu isku dayay inuu ka faa'iideysto oo uu isku cadeeyo aabihii laakiin ma awoodo inuu dilo doofaarka eraga kala qabteen sidaa darteed haddana wuxuu dareemayaa inuu fashilmay oo uusan aabihiisa kale noqon doonin habeenkii xigay dab ayay shidanayaan waxayna cunayaan ugaarta ay soo diloodeen isla markiina waxay maqlayaan shaqan waxay si degdeg u qaadanayaan warmahooda iyagoo difaac galaya laakiin wax kuwii arki waayeen sidaa darteed fadhigooda ay dibs kaga noqonayaan daqiiqada kadib ayna u leexanayaan dhinaca kale ee buurta qarkeeda boqolaal ayaa ka dhacaya buurta halka qaar ka mid ah ay dib u soo noqonayaan mid ka mid ayaa go'aansanaya inuu weeraro wiilka hogaamiyaha Kayra wuxuu eegayaa dibiga wuu istaagayaa waxay ku oranayaan wiilkaagu waa dhintay mana awoodno inaan kulmino adiga iyo hogaamiyaha qabiilka sidaa darteed waa inaan xakamaysaa dareenkaaga kooxda intooda kale waxay bilaabayaan inay aruuriyaan ugaadhi laakiin Tao wuxuu ka qaylinayaa buurta geeskeeda isagoo rajo kale wiilkiisu inuu mar uun la hadli doono wuxuu ka dulqaylinayaa buurta ilaa ay mugdi noqotay wax jawaabana ma helayo kooxda mid ka mid ayaa u imaanaya wuxuuna u sheegaya inay ku noqdaan qabiilka si ay u geeyaan hilibka sidoo kalena aysan macquul ahayn in wiilkiisu nool yahay maadaama ilaa hameenkii oo dhan ay joogeen wax jawaabana ka waayeen Tao uu ogolaanaya isagoo ay ku adag tahay wuxuuna u sameynaya asdhaqameed sidii kii hore oo kale wayna tagayaan iyagoo soo codeer u galaya qabiilkooda saacado badan kadib gorgor ayaa ku soo degaya wuxuuna baraarugaya isagoo luka jaban sidoo kalena u dhaxeeya dhul iyo cer u dhawaaqaya isagoo caawinaad weydiisanaya laakiin ma helayo wax jawaaba maxaa yeelay ma jiro cid maqlaysa hadda ma garanayo waxa uu sameeyo si uu u badbaadana waa inuu wax u sameeyaa wuxuu isku dayayaa inuu hoos u dego laakiin ma aha mid fudud marka loo eego marxaladda uu ku jiro inuu luka jaban yahay sidoo kale macquulna aysan ahayn in laga dego buurta ayuu ka laalaadayaa taasi oo dhagaxii uu lugta saartaba inuu la samrirraxanayo markii uu rajo dhigo roob ayaa imaanaya waxaana toga buuxinaya daad wuxuu u arkayaa fursad wuuna isku sii deynayaa biyaha subaxii xigay si mucjiso ah ayuu uga badbaadayaa roobkii laakiin markii uu soo toosay lugtiisa ayaa ahayd mid kasii dartay mana awoodo inuu socdo aad ayuu u harradsanaa wuxuuna cabbayaa biyo wasakh ah wuxuu eegayaa lugtiisa oo aad u bararsan wuxuu dhigayaa dhinacyadeeda dhagaxyo si geesnimo leh ayuu lafaha dib iskugu celinayaa wuxuuna ku xirayaa xargo iyo qoryo si ay u kamarkiisu furan yahay wuxuu afka uga xirayaa xarig sidaas ayuuna ku qaadayaa wuxuu nadiifinayaa dhaawaciisa isagoo daaweynaya wax yar kadib waraabayaal ayaa ku soo dhowaanaya Kayra wuxuu qaadayaa yeega isagoo ku qarinaya meel ammaan ah kaas oo ay si nabad u wada seexanayaan maalintii xigtay Kayra wuxuu helayaa dhir uu ku daaweeyo lugtiisa iyada ayaa afka iska furaysay intuu ku mashquulsanaa lugtiisa waxayna u eegaysaa si yaab leh wuxuu isku dayay inuu biyo siiyo laakiin way ka labalabaynaysaa iyadoo weli u aragtay cadowgeeda ugu dambayn way fahmaysaa biyihii ayayna cabay dab ayuu shidanaya wuxuuna cunayaa bakaylaha halka iyadu isku dayso inay ka hor cunto laakiin wuu u diidaya isagoo tusaya inuu hogaamiye yahay ayna tahay amarkiisa inay qaadato sidaa darteed waa inay cuntaa markii uu u fasaxo wuu tababaraya isagoo mar walba ka hor cunaya wax walba oo cunaya maalmo badan ayay ku qaadanayaan godka Kayra wuxuu go'aansanayaa inuu socodkiisa sii wato si uu u gaaro qabiilkiisa wuxuu u sheegayaa inay tagto isagoo cayrinaya laakiin yeedu ma tegayso oo waa iska fadhiinaysaa wuu iskaga tegayaa halka yeedu dabagelaysa isaga wuxuu isku dina arkaya koox ka daawanaysa buur u dhow hogaamiyaha yeeda ayaa u soo dhowaanaya Kayra wuu istaagayaa isagoo cabsi qaba wuxuuna gacanta ku qaadanaya warankiisa Alfa ayaa u soo dhowaanaya wayna iskaranayaan maadaama ay isku koox ahaayeen Alfa wuxuu uga digayaa inay iska iloobaan maadaama uu yahay saaxiibkiisa cusub cajiib bahalkii isku dayay inuu cuno ayaa badbaadinaya noloshiisa waliba wuxuu ka badbaadinayaa koox dirtay marka hore inay cunaan kadib yeega ayaa ku laabanaya kooxdiisa wayna ka tagayaan laakiin Alfa
wuxuu u muuqdaa mid tegaya isaguna maadaama uu helay kooxdiisa si murugo leh ayuu wuxuu u eegayaa Kayra isagoo ka sugaya amar Kayra wuxuu fahmayaa inuu doonayo inuu raaco qoyskiisa si lamida sida isaguna u doonayo inuu helo qoyskiisa markaas ayuu u sheegayaa inuu tago oo uu raaco qoyskiisa waa waqtigii ugu murugada badnaa Kayra kaligiis ayuu noqday waxayna u muuqataa inuu dareemayo xanuun ka daran dhimashada maadaama uu yahay kaligiis oo uu joogo dhul wada baraf ah oo khatara misana biyo iyo cunto aan lahayn wuxuu bilaabayaa safarkiisa kaligiisa isagoo aan haysan Alfa wuxuuna dareemayaa kalinimo weyn gaar ahaan habeenkii laakiin safarkiisa ayuu iska sii wadanayaa isagoo ku soconaya dhul wada ku dhawaaqaya magaca Alfa maadaama uusan arag saaxiibkiis maalmo badan laakiin Kayra ma ogeyn khatarta ayuu u farxayaa wuxuuna ku ordayaa ninka isagoo ku qaylinaya nasiib xumo waa nin mar hore dhintay marka ayuu niyada ka jabaya wuxuuna baaranayaa teendhada gudaheeda bal inuu ka helo wax uu cuno nasiib xumo waxba kama helaya aad ayuu u niyad jabayaa waxaase usii dheer in barafku saameeyo jirkiisa taasi oo sababtay inuu dhiig tufo waxayna u muuqataa inuusan kusii noolaan karin barafkan taasi oo inuu durba gaaro reerkiisa wuxuuna haystaa waqti aad u yar si uga baxo barafkan wuxuu ka qaadanayaa ninkii dhintay qaanso iyo fallaar taasi oo laga yaabo inay anfacdo si lama filaan ah koox waraabayaal ayuu arkayaa kuwaasoo kusoo ordaya dhan kale waxaa ka soo socda duufaan baraf wadata taasi oo ay adag tahay in la dhex maro waa laba daro mid dooro Kayra wuxuu u sheegayaa Alfa inay ordaan iyagoo dhanka dabaysha u baxsanaya dabaysha ayay dhex marayaan halka waraabayaasha ay weli ceyrsanayaan ay galayaan god baraf ah halkaasoo ay kaga badbaadayaan waraabayaasha inta ay ku sugan yihiin godka cod ayay godka gudihiisa ka maqlayaan waxaana jira makhluuqaad kale oo ku dhuumanaya godka si lama filaan ah Alfa wuxuu galayaa difaac wuxuuna arkayaa shabeel madow oo ku soo socda Kayra wuxuu haystaa qaanso iyo fallaar ayaa Alfa inuu ku dhufto fallaarta maadaama uusan khabiir ku ahayn fallaarta shabeelka ayaa ka xoog badanaya Alfa isagoo si xun u dilaya Kayra indhaha intuu isku qabto ayuu shiishayaa shabeelka wuxuuna sii deynayaa fallaarta nasiib wanaag uu ku guuleysanayo inuu dilo shabeelka inkastoo Alfa uu badbaaday haddana wuxuu noqonayaa dhaawac aad daran Kayra ayaa u mahadcelinaya Alfa wuxuuna u ballan qaadaya inuusan weligiis ka tegi doonin labadooduna waxay badbaadiyeen nolosha midba midka kale intii safarka ay ku jireen Kayra wuxuu arkayaa dhagaxaanta ay qabiilkiisu dhiseen kuwaas oo ay isticmaalayeen jihooyinka ay aadayaan iyo midka ka imaanayaan wuxuu ogaanaya inuu aad ugu dhow yahay qoyskiisu rajo ayaana galaysa oo kalena Kayra uu dhiig tufayo isagana ay ku adag tahay inuu socdo Alfa wuxuu u soconayaa si tartiiba ilaa ugu dambeyn uu ka dhacayo socodkiisana inta ayuu ku ekaa maadaama uu ahaa dhaawac aad u liita laakiin Kayra oo ballan hore uga qaaday isagoo oofinaya ballantiisa ayaa qaadaya isagoo ku dhibtoon wuxuuna xambaaraya inta ka dhimay safarka maalmo iyo habeenno ayuu sidaan u sidayaa isagoo dhex maray dhul ay adag tahay in lagu socdo mana ku fikirayo inuu cidlo aga tago mar un ugu dambeyn wuxuu arkayaa tuulada qabiilkiisa isagoo aan ogeyn Alfa inuu nool yahay in kale wuxuu galayaa xerada dhexdeeda inay Alfa dhadig tahay oo ay uur leedahay waxay dhalaysaa ilmo kuwaasoo qabiilku u arkayaan mucjiso sanada kadib qabiilku wuxuu u baxayaa ugaarsi kale laakiin markan wax walba way ka bedelan yihiin sidii hore Kayra ayaa horkacaya ugaarsatada halka iyadii yaryarka ahayd ay noqdeen kuwo waaweyn oo ugaarsiga qayb ka ah waxay noqdeen wax ka badan ugaarsato waxay noqdeen saaxiibo iyo isbahaysi cusub Kayra wuxuu doortay nolol halka uu dooran lahaa dil wuxuuna ku badbaaday aragtidiisa iyo naxariistiisa sidoo kalena wuxuu noqday hogaamiye dhab ah kaasi oo ka dhisan dhinac walba